waayahay soo dhawaada meel kasta oo dunida ka joogtaan khiyaarta nala socota waa timin ka mid ah barnaamijyada channelka Cabdicasiis Barrow oo gobolka Bariga Dhexe aan ku faaqidayo qodobada idin hayana waxaa ka mid ah dawladda Iran oo ku anjabtay in ay doonayso markan hubka nuclear-ka inay u bedesho uranium-keeda haddii ay sii socdaan culeysyada Mareykanka uga imaanaya ee gobolka Bariga Dhexe waxaan sidoo kale idin hayaa qodobo ay ka mid yihiin dawladda Mareykanka ayaa la sheegay markab ay leedahay oo marinka Hormuz doonaya xoog inuu ku dardaro in ciidamada dawladda Iran ay ka hortageen oo ay ka celiyeen halkaasi dawladda Ciraaq ayaa ciidamadeedu waxay bilaabeen saxaraha gobolka Najaf inay u jihaystaan halkaas oo lagu sheegay in Israa'iil ay ku leedahay saldhig qarsoon iyo waliba dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo la xaqiijiyay weerar inay ku qaaday gudaha wadanka Iran weerarkaas oo ahaa mid la qarinayay waxaa markii dambe ay ka dhaxashay in si ba'an loo weeraro dagaalkii lagu qaaday dawladda Iran waxa uu ka dhigan yahay in saddex dawladood ay isku bahaysteen oo Imaaraadku weerarku ay qayb ka ahaayeen qodobadaas ayaan tibintan idinku falanqeynaya meel kasta oo dunida ka joogtaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin aan ku horeeyay Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa ku dhawaaqday in ay kor u qaadayso uranium-keeda haddii Mareykanku iyo Israa'iil isku dayaan in culayska ay ku hayaan ay sii ballaariyaan isla markaana ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto samaysashada hub nuclear oo dhinaca militariga loo isticmaalayo dawladda Iran marnaba arrintan kuma raad joogin laakiin culeysyada saaran ayaa ku sii riixaya baa la leeyahay in tilaabadan ay si degdeg ah u qaado afayeenka guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda amuraha dibadda ee baarlamaanka Iran Ibrahim Ridai ayaa talaadadii sheegay in Tehran ay suuragal tahay in uranium ay aad u kobciso ilaa iyo heer ay gaarsiiso 90% taas oo ah heer loo arko mid ku habboon samaynta hub nuclear haddii dalkaasi mar kale uu la kulmo booyire weerar military oo Mareykanku ay ku qaadaan Ridai ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa X waxa uu ku yiri kobcinta uranium-ka ilaa iyo 90% waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinka Iran haddii weerar kale uu dhaco isagoo intaa ku daray in arrintan looga doodi doono gudaha baarlamaanka wadanka Iran maalmaha soo socda oo dadaaladu ay soconayaan hanjabaadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan hadallada ka soo baxaya Mareykanka iyo Israa'iil ee la xiriira kaydka uranium-ka la hodmiyay ee wadanka Iran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay in Iran ay marka hore jeedisay Mareykanka inay noqoto mid ku ciyaaraysa oo ay muhiim tahay in la joojiyo nuclear-keeda Trump ayaa sidoo kale cadeeyay in Washington ay si dhow la socoto goobaha nuclear-ka isla markaana dhaqdhaqaaq kasta oo laga sameeyo ay noqon karayso tallaabo military oo Mareykanka uu ku bedelo dhinaciisa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo la hadlay barnaamijka 60 daqiiqo ee ka baxa telefishin ku yaala gudaha wadanka Mareykanka ayaa sheegay in ay suuragal tahay in howlgal military oo nuclear-ka dawladda Iran la fuliyo waan galaynaa waan ka soo qaadaynaa ayuu si kooban u yiri taas oo dadka khubarada ah ee wax taxliiliya ay ku tilmaameen in ay tahay tallaabo dawladda Iran la doonayo in mar kale lagu weeraro isla wararka Mareykanka iyo Iran ayaan dul joogay ciidamada ilaalada kacaanka Mareykanka aan ilaahday ayaa ku dhawaaqay in markab Mareykanku uu leeyahay oo marinka Hormuz doonaya inuu xoog ku dardaro halkaasi si degdeg ah loo cadiyay oo ay ka hortageen ciidamada ilaalada xeebaha kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga taliyaha ciidamada badda ee ilaalada kacaanka dawladda Iran ayaa sheegay in ay doon dheerayso oo Mareykanka ay dhawaan isku dayda baa la yiri inay ka gudubto marinka Hormuz balse la ogaaday dhaqdhaqaaqa ka hor inta aanay ka soo gudbin halkaasi sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faris News Agency ciidamada badda ee ilaalada kacaanka ayaa sheegay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo adoomo Mareykanka uu leeyahay isla markaana ay sameynayaan tallaabooyin digniin ah bayaan ka soo baxay ciidamada ayaa lagu yiri in doonaha Mareykanka ay u bedesho baa la yiri jihooyinka ay u socdaan hase ahaatee haatan ay abuuri karayso isku dhacyo soo degdega marinka Hormuz ayaa xiisadiisa wali taagan tahay dawladda Mareykankana waxaa muuqata inay wax jawaab ka keenin ilaa iyo hadda hadalka ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran
haddii aan sii eego war ka soo baxaya wargeysyada waaweyn ee Mareykanka ayaa tilmaamaya in ciidamada dalka isutaga Imaaraadka Carabtu ay qayb ka ahaayeen weeraradii lagu qaaday dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, taasina ay sababtay ciidamada ilaalada kacaanka in si ka duwan dalalka qaliijka wadankaasi loo garaaco. warbixin uu faahfaahiyay baa la yiri wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta uu bishii hore qaaday weerar military oo lagu bartilmaameedsaday xarumo shidaal oo ku yaala gudaha Iran, taas oo muujisay door aan horey loo shaacin oo Abu Dhabi ay ku lahayd dagaalkii ka soconaya gobolkan. sida warbixintu xusta weerarada ayaa waxaa la sheegay warshada sifaysa shidaalka ee ku taala jasiiradda Lawan ee dalka Iran in ay Imaaraadku weerareen. weerarkan ayaa lagu sheegay inuu dhacay ku dhawaad isla waqtigii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay xabad joojinta kadib olole duqeyn cirka ah oo socday muddo 5 toddobaad ah oo dowladdaasi ay la kulmeen waa Iran. wargeyska oo soo xigtay ila magacyadooda aan shaacin ayaa waxay sheegeen in maamulka Mareykanka uu si qarsoodi ah u soo dhaweeyay tallaabada Imaaraadka, isla markaana uu taageeray dowlado kale oo qaliijka ah in ay ku biiraan dagaalka ka dhanka dowladda Iran. si kastaba wakaaladda wararka AFP ee Faransiisku uu leeyahay ayaa sheegtay in aysan si madax bannaan u xaqiijin karin saxnimada xogta la xiriirta weerarka Imaaraadka, iyadoo aan la cadeyn baa la yiri taariikhda rasmiga ah ee weerarka uu dhacay. dhinaca kale, telefishinka dowladda Iran ayaa 8 Abriil sheegay in Tehran ay qaadayso weerar gantaalo ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ka dhana baa la yiri Imaaraadka iyo Kuwait saacado yar kadib markii la weeraray xarumaha shidaalka ee jasiiradda Lawan. warbixintan ayaa waxay sare u qaadaysaa xiisadda gobolka meesha ay hadda u socoto in ay tahay mid halisteeda leh. ugu dambeyntiina, ciidamada wadanka Ciraaq ayaa u jihaystay saxaraha gobolka Najaf, halkaasi oo la sheegay in saldhig qarsoodi ah ay ka samaysteen ciidamada nidaamka gacan ku samayska ah ee Israa'iil. arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii qaar ka mid ah wargeysyada waaweyn ee Mareykanku ay soo bandhigeen fadeexad aad loola yaabay oo wadanka Ciraaq qabsatay. ciidamada qaranka dalka Ciraaq oo ka qayb qaadanayaan ciidamada Xashdu Shacbi ayaa salaasadii waxa ay bilaabeen howlgallo ballaaran oo loogu magac daray Farad al-Siyaada oo ah dhaqangelinta madax banaanida, taas oo ka socda baa la yiri saxaraha gobolka Najaf iyo waliba aaga Karbala. howlgalkan ayaa yimid kadib markii muran xoogan uu ka dhashay warbixino sheegaya in goobo sira oo ku yaala saxaraha Najaf ay isticmaaleen ciidamada Israa'iil intii lagu guda jiray weerarkii ugu dambeeyay ee dowladda Iran lagu qaaday. taliyaha howlgalka lagu magacaabo Furaad al-Awsad ee Xashdu Shacbi, General Ali al-Hamdani, ayaa sheegay in howlgalku la fuliyo baa la yiri 4 jiho oo kala duwan, ujeedadiisuna ay tahay sugidda wadada isku xirta Karbala iyo deegaanada al-Nuqayb la yiraahdo oo ah goobta saldhiggaasi laga sameeyay. warbixintu waxay intaas ku dartay in howlgalka uu fulinayo baa la yiri awaamiir ka yimi ra'iisul wasaaraha ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadanka Ciraaq si uu u gormeero baa la yiri taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadankaasi General Abdul Amir Yarala. dhinaca kale, wasaaradda difaaca Ciraaq ayaa shaacisay in taliyaha guud ee ciidamada uu gaaray deegaanka al-Nuqayb si uu la socdo xaaladda amni iyo diyaargarowga ciidamada ku sugan aaggaasi. iska horimaadka lala galay ciidamada ayaan weli la aqoon ilaa iyo hadda. bayaan ka soo baxay dowladda Ciraaq ayaa soo saartay habeenkii Isniinta waxaa lagu xaqiijiyay in ciidamada ammaanku ay bishii Maars ee sanadkan la galeen iska horimaad ay la sheegeen kooxo aan la aqoonsan ilaa iyo hadda, kuwaasi oo markii dambe dib uga gurtay goobta iyagoo helaya taageero dhinaca cirka. sida ay sheegayaan madaxda unugga warbaahinta amniga ee taliska howlgalka wadajirka, dhacdadan ayaa dhacday baa la yiri 5 Maarso sanadkii 2026,
waxaana ku dhintay hal askari oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dowladda halka laba kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda Ciraaq ayaa ku adkaysanaysa in waqtigan aanay jirin wax dhismo ah ama ciidamo shisheeye ah oo sharci darro ku jooga gudaha wadankaasi, iyagoo sheegay in baaritaano hordhaca ay sameynayaan isla markaana la ogaan doono sida ay wax u jiraan. khiyaartayna la socotay tabinta labaad ee maanta iyo channelka Cabdilcasiis Barrow aynu ku kulmayno intan ayaan ku akalayaa inagoo muuqaalo kale ku baahinay channelka Barrow Show oo aad halkaasi ka soo daawan karayso xog la yaab leh iyo dhacdooyin kale oo gobolka Bariga Dhexe ka jira. Soo dhawaada.